qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka kuna midoobay magaca Horusocod oo shir jireed ku qabtay Muqdisho ayaa waxay kaga hadleen dadkii ganacsatada, dumarka iyo carruurta isugu jiray ee laga soo raafay magaalada Laascaanood kuwaas oo ka soo jeeday koonfurta Soomaaliya. Axsaabta siyaasadda oo ka hadlay arrinkaasi ayaa falkaasi ku tilmaamay mid laga xumaado. sidoo kale waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee ka taagan Galmudug iyo arrimaha la xiriira doorashooyinka dalka. waa kuwan iyaga oo ka hadlaya arrimahaasi. waxaanu leenahay madaxda maamulada goboladaas shalay waxaad joogteen Muqdisho shaqaala ka ahaydeen arday baa ka ahaydeen anigu waan ogahay Faysal Ali Waraabe ardadii buu ahaa iskoolka kula jidhoo Soomaaliya ku jiray shaqaal waxa markaa ahaa wax waa lagu musaafirinaya iyo wax hadadaya midna toona shalay laba weydiin inuu maanta maalinka isagoo safety gacanta ku haya inuu maanta maalinka ummadda Soomaaliyeed soo qaxiyo waa wax laga xumaado weey. marka waxaan ka sheegayaa dhanka samaanta inay wax samaa oo fiican samay jireen laakiin hadda duu maamul wada isbedelay waxa loo baahan yahay inay macna fiirsadaan odayaashii ka horeeyay dadku soo dhaweey jireen iyo maartay martisoor ina maartay gaaran la siiyay meel kasta taa ku socodkan markii loo baahan yahay contact personal samay jiray marka waxaan fiilinayay sida dadka oo kaas oo kale maartay soo dhaweyntii oo maartay Soomaalinimadii loo yaqaanay inay maartay arintaasi sii wadaan oo si amba qaadaan ma fiilinin in maartay arimaano kala dhacaan waayo walaalayahay markastaba mala kala maarmo Soomaali waa mid anu waxaan leeyahay ummadda maartay reewqooyi haday sool tahay haday sanaag tahay haday awdal tahay haday waqooyi galbeed tahayba waxaan leeyahay lama qabtiin taas taliska xagga jooga meesha saa uga talinaya mahadadiisa iyo dibtiisa iyo wuxuu ku dhaqaaqay ummadda Soomaaliyeed way ka dhirigsan tahay wax oqdada oo laga qaadaya habeeraatay ma jirto marka waxaan leenahay dhaxan murugiyo harad mudane maantay curatoy matana hayse an malo hashe namaan deeqe in qof Soomaali ah intuu qof Soomaali soo qabto oo yiraahdo ajnabi baa tahay meeshan anigu ku noolaa kuma noolaan kartid waa dhacdo ugub ah waa waxaan hore u dhicin waa wax nasiib darro ah waa taariikh xun waxay ahayd black history maalin madoobay ahayd maalinta ummadaasi nooca loola dhaqmay ciddii samaysay ayay u gaar tahay Soomaali oo dhan ma aha shacabka reer Laascaano ku noolna ma aha mid ayagu ay godob u yihiin oo godob galeen looma arkayo ummadda Soomaaliyeed way u ogtahay maamulka Muuse Biixi waxaan ugu digayaa waa la soconaa xuquuqda insaanka lagu hadgudbay qof kasta ummaddaas dhibaato u geysatay sharci baan hor keeni doonaa maxkamad baa la soo saari doonaa waayo dhulkaas waa dhul Soomaaliyeed sharci ay maanta ay ku soo saareen dadkaas ma jirto dawladna ma aha ma soo saarin maamul goboleed ahaan ma soo saarin sharciga ay isticmaaleen waxaan rabaa inaan iraahdo madaxda saddexda xisbi ee Soomaaliland xornimo iyo madax banaani laguma gaaro kala sooc iyo isirsifayn waxa lagu gaaraa nidaam dawli ah oo dadka oo dhan ka mas'uul ah dadka la soo raray oo hadda Laascaanood laga soo raray waxa ku jira dad haysta kaarkii cod bixinta waxa sii xoojinaya khilaafka Galmudug ka jira waxaan leeyahay shacabka reer Galmudug madaxda reer Galmudug colaad iyo dagaalo iyo dhibaato waa soo aragteen waxaan leenahay nabadda iyo maamulka haystaan ku afraatay oo runtii garab istaaga maamulka sunnana waxaan leenahay waa la iska garab istaagi karaa in argagaxisa lala dagaalamo laakiin in systemkii sidii loo soo dhisay dhibkay dhibaato loo soo maray in aad carqaladeysaan runtii aad bay u adagtahay. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.